wadamada beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa taageero muujiyay wadahadalka Somaliland iyo Soomaaliya uga furmay dalka Djibouti ee ay soo agaasimeen dawladaha Djibouti iyo Mareykanku. qoraal ka soo baxay safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya oo ay si wada jir u saxeexeen dawladda Ingiriiska qaramada midoobay urur goboleedka IGAD howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya loona yaqaano AMISOM Mareykanka Shiinaha Denmark Canada midowga Yurub Finland Faransiiska Jarmalka Belgium Ireland Talyaaniga Japan Sweden Norway Switzerland Uganda Turkiga iyo Holland ayaa lagu sheegay inay dhammaan wadamadani si buuxda u taageersan yihiin ballanqaadka labada hogaamiye ee Muuse Biixi iyo Maxamed Farmaajo ay ku muujiyeen inay sii wadi doonaan wada xaajoodka. qoraalka ayaa lagu yiri waxaanu soo dhaweynaynaa kulanka oo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca xoojinta xiriirka iyo kor u qaadida isfahamka. waxaanu dhiirigelinaynaa gudiyada farsamo ee madaxdu ay magacawday si ay shacabkooda u siiyaan natiijo la taaban karo ayaa lagu yiri. Khadar Haybasaab TV. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo eDahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.